Soomaaliyadu saddex caruur oo agoon leh oo ku nool boqortooyada Sacuudi Arabiya oo uu mehersaday wiil Soomaali oo ku nool wadanka Norway oo markii uu mehersaday isbuuc kadib xiriirkii u jaray meel walbana ka baloogay. hooyadana ayaa sheegtay inaanay garanayn ehelkiisa qaraabadiisa iyo cidiisa iyuu yahayba. warwar iyo wacaal ayay la nooshahay. waxaa shaki kaga jira meherka uu ku qabo. haddaba dhacdada hooyadan iyo qisadan aynu barnaamijkeena maanta aynu ku qaadaynaa. ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaadana la wadaag. waxay tidhi qisadayda ayaa halkan ka bilaabatay iyo dhibkayga iyo silacayga iyo warwarkayga kadib markii wiil ay iska barteen baraha bulshada uu guursaday, balse markii uu guursaday oo u mehersaday ay garan weyday meeluu jaan iyo cidhib dhigay. waxay tidhi waa ii baloogay meel walba, telefoonkayga ma qabto, heer ayaan gaadhay aan warwar iyo walbahaar habeen walbaan seexan waayo. haddaba dhacdadan ama qisadan gabadhan Soomaaliyeed ee hooyada ee saddexda caruurta leh ayaynu barnaamijkeena maanta aynu ku qaadaynaa. ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaadana la wadaag. ku soo dhawaada barnaamijka. waa hooyo Soomaaliyeed oo saddex caruur leh. waxay tiri waxaan ku noolaa isla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaan isaga soo baxay dalkaygii hooyo kadib markay shaqalaan iga soo foosartay dalkaygii. waxaan galay Sacuudi Arabiya. Soomaaliya iyo Sacuudi Arabiya waxaan la kulmay silic iyo saxariir oo ku saabsanaa tahriibkii aan halkaasi soo maray. tahriibku silic ayuu ahaa bay tiri, balse waxa ay waday bay tiri saddexdeeda caruurta ee agoonta inaan u raadiyo nolol iyo mustaqbal dhaama kanay hadda ku nool yihiin. waad og tahay bay tiri Soomaaliya waxaa ka holcaya colaado sokeeye, dagaallo aan dhammaad lahayn. hooyadan Soomaaliyeed ayaan magaceeda qarinay sababo jira awgood. waxay tiri hooyadan Soomaaliyeed ee saddexda caruurta ee agoonta leh wiil ayaanu iska baranay baraha bulshada gaar ahaan Facebook. muddo ayaanu xiriir lahayn wiilkan Soomaaliyeed. wiilkan Soomaaliyeed aanu isbaranay waxa uu ku nool yahay qaaradda Yurub gaar ahaan wadanka Norway. muddo ayaanu wada soconay bay tiri, balse waanu kala hadhnay ugu dambayn wiilkaasi annagoo xiriirkayagii markaasi socday kadib markii aan ku qanci waayay xiriirkiisa. xiriirkii ayaanu jaray bay tiri, balse igamuusan hadhin wiilkaasi. wiilkaasi waxa uu ku nool yahay Norway. muddo kadib ayaan ka naxay wiilkaasi markuu iga hadhi waayay. waxaan isiri ha xumaynin ee fadlan soo dhowee. dib ayaan u aqbalay xiriirkiisii jacayl. kadib jacayl ayaan u qaaday markii dambe oo xad dhaaf ayay tiri. ugu dambayn wuxuu ii soo bandhigay inaanu isguursano markaanu muddo wada soconnay. waan ogolaaday bay tiri ugu dambayntii, maadaamaan ahay gabadh single mother oo saddex caruur oo agoona leh kuna nool boqortooyada Sacuudi Arabiya. waad og tahay bay tiri Sacuudi Arabiya dhibka iyo rafaadka dhinaca sharciga. wuxuu dhahay bay tiri faamligaaga ayaan la hadlayaa, waan kaa doonan doonaa, kadibna waxaad imanaysaa buu yiri magaalada Muqdisho si aad u timaado wadanka Turkiga, aniguna aan u imaado halkaasi ku aqal galno. sidaasi ayaanu ku heshiinay bay tiri. waxay tiri aabbahay waa u dhintay. hooyaday ayuu la hadlay bay tiri. waxa uuna u sheegay inuu doonayo inuu gabadhayda guursado. hooyaday waa ay soo dhaweysay bay tiri. waanu isguursanay, balse way tiri weli aniga oo dhinac xaggayga kama uusan socon. hooyaday ayuu la hadlay $200 oo meherkiya
iyo maalinkii xafladda ayuu diray aniguna lacag ayaan ku daray bay tiri si loo sii dhammaystiro inta dhiman ee xafladda waanu ismehersanay bay tiri balse maalinkaanu ismehersanay isbuuc kadib guud ahaanba xidhiidhkii ayuu ii jaray telefoonkii waa iga qaban waayay bay tiri waxa laalaya wuxuu ii sheegay haba yaraatay ma jirto wuxuu gaadhay xitaa inuu iga baloogo Facebook WhatsApp Fiber iyo aalad kastoo social media aanu kala haynay oo aanu ka xiriiri jiray waxay tiri warwar iyo walbahaar ayaan la noolahay waxa uu yiri familygaaga iyo familygayga ayaan isbari doonaa marka aad timaado Turkiga familgiisa iyo familygaygu way tiri isma yaqaanaan guud ahaanba balse waxa uu shuruud ku xidhay marka aan Turkiga imaado adiguna Turkiga timaado ayaan isbari doonaa labada balse marka aad Muqdisho tagto Muqdisho waxaan ugu diri doonaa hooyo lacagtii aad ku iman lahayd dalweynaha Turkiga iyo lacagtii Sooriyada iyo meherka ama yaradka sidaad u taqaano ee aan reerkaaga siin lahaa taasi hooyadan Soomaaliyeed u sheegtay lacag $4,000 gaaraysa qiyaastii waxay tiri guud ahaanba ballamahaasi waa uu ka baxay waa uu baloogay meel aan kala xiriiro ma garanayo waxaan sameeyo bay tiri mararka qaarkood waxaan isweydiiyaa maxay tahay sababaha uu ninkan kugu qabo waa uu xidhay bay tiri maanta waxaan ahay naag ninkeed haddana waxaan isweydiiyaa maadaama aan weli kuu joogin oo hooyada iyo wadaad iyo markhaatiyaal ku meheriyeen sidee ayuu meherkaasi anshax ku noqon karayaa su'aalaha kale aan isweydiiyaa ayaa maxay tahay sababta inuu reerkayga ama familygayga uu baro familgiisa uu ugu xidhayaa inaan gadaal ka dhigno oo markaan anigu Turkiga imaado aan isbarno su'aasha kale aan isweydiinaya ayaa muxuu yahay meherka ninkan ku haya dhaqaale kuma qabo ninnimana kuma qabo waxa laalaya waxaan ku qabo ma garanayo laba markhaati wadaad iyo hooyada ayaa meel fadhiistay meheriyay baa la yiri balse waxa soo dhan raali ayaan ka ahaa markaygii hore waayo aniga ayaa la hadlay hooyada ayaan u sheegay in ninkan aan jeclahay waayo waan jeclaabay tiri waxaan u qaaday jacayl xad dhaafa waa dareemi kartaa inuu $200 diray aniguna aan lacag ku daray si meherkaygaas u dhaco oo aan u noqono qoys wanaagsan oo degan balse waxay tiri waxaasi oo dhan gadaalaya iska bedeleen dhibkan iyo rafaadkan ayaan la noolahay habeen walba su'aalo ayaan isweydiiyaa muddo bay tiri 3 isbuuc ku dhow ma garanayo meel uu jaan iyo cidhib dhigay telefooniga ma qabanayo aalad kastoo social media ka hayayna waa iga baloogay bay tiri anigu ma aqaan meel aan kala xidhiidho familygaygu ma garanayaan familgiisa waayo ismaba uu banbarin cid allaale iyo cid aan u raacay cid aan ka dacwooyo midna ma garanayo bay tiri waxay tiri gabadhani oo talo doonaysa waxa aan doonayaa talo in talo la siiyo waxaan ka codsanayaa culimada Soomaalida iyo guud ahaanba ummadayda Soomaaliyeed inaad talo siisaan talooyinkaasi oo aad ka duuleysaan maadaama aanan weli joogin aniga xilligii meherka ee hooyaday iyo wadaad iyo laba markhaati kaliya ay meheriyeen meherkaasi anshax ma yahay taa ayaan doonayaa inaad naga jahil saartaan maxaa sameeyaa bay tiri ninkan sidaas ii galay ballamihii oo dhan igaga baxay ee meel walba iga baloogay
culimada Soomaalida iyo cid kasta oo mas'ala diiniya u haysa qisadaydan fadlan waxaan doonayaa bay tiri commentiga in la igu reebo si aan halkaas ugu akhristo una manage gareeyo talooyinka oo aan ugu dhaqaaqo waxaan doonayaa talo iyo tusaale fiican oo aan dadkayga ka helo waxaan ahay bay tiri hooyo Soomaaliyeed oo 3 carruur oo agoon haysata oo ku nool boqortooyada Sacuudi Arabiya carruurtaydu waxay ku nooshahay Muqdisho hooyaday ayay haysaa Sacuudiga waxaan u soo galay ayaa ahayd in carruurtayda mustaqbal u yeelo balse waxaasi oo dhan muddooyinkii dambe ayay isbedeleen bay tiri daawade gabadhan Soomaalida ee hooyada ee 3 carruurta leh fadlan talada kugu fiican siin lahayd qof walaalka oo Soomaaliyeed oo muslima haddii aad diiniyan ama mas'ala diiniyan u cuskan kartana fadlan u cusko oo aqoon diiniyan aad leedahay fadlan commentiga ugu reeb fiidiyogana like saar si uu arko wiilkii gabadhan sidaas u galay oo ku nool boqortooyada Norway laga yaabo inuu fiidiyogan markuu arko uu soo waco oo ballamihii uu fuliyay ama ballamihii uu ballan qaaday uu fuliyo fadlan fiidiyogan like saar ama share gare